shir jarayd oo maanta magaalada Hargeysa ay si wada jir ugu wada qabteen afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani Barkhad Jaamac Xirsi Batuun iyo Yuusuf Kaysa Cabdilaahi oo kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka u cide ayaa waxay bogaadiyeen heshiiskii maalintii shalay labada beelood ee walaalaha ee dirutu inta badan ku dhex martay degmada Ceelafweyn ay ku wada gaadheen in xabad joojin la sameeyo isla markaana laga wada shaqeeyo sidii xasilooni lagu soo dabaali lahaa deegaankaasi annagoo ah xisbiyada u cidiyo wadani waxaanu jecelnahay inaanu si weyn u bogaadino hawshii qiimaha lahayd ee shalay toole ka dhacday deegaanka Ceelafweyn ee labada reerood ee walaalaha ee deegaanka wada degan Ilaahay ku abuuray ay ku gaadheen heshiiskii taariikhiga ahaa ay horkacayeen boqor Cismaan oo Maxamuud iyo Suldaan Saleebaan runtii waxay ahayd wax lagu diirsado waxay ahayd wax ummadda faraxti geliyay waxay ahayd wax loo riyaaqay waxaanu Ilaahay ugu mahad celinaynaa sida wanaagga leh ee hawshaas ay ku dhamaatay waxaanu mar labaad hambalyeeynaa odayaasha isku xilqaamay iskood inay dhiigii iyo dhagartii dadkooda dhex taalay ay dhameeyaan waxaanu leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro bartaa ka wada waxaan jeclahay anigoo ku hadlaya afka xisbiga afka gudoomiyaha xisbiga afka taageerayaasha xisbiga inaan baaq kooban u dirno dadka deegaanka degan waxaan leenahay waxay tihiin hilbo wada dhashay waxay tihiin dad isku deegaana waxay tihiin dad Ilaahay meel ku wada oomay waxa maanta idinku waajiba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu idinku manna sheeganayo inuu dhiigiinii kala badbaadiyay inuu dadka Ilaahay idin soo diray liilaafi quraysh ilaafihim rixlat ash-shitaa'i was-sayf falyacbuduu rabba hada al-bayt alladhi at'amahum min juu' wa aamanahum min khawf Ilaahi maanta dhagartii dhiigeedii ka badbaadiyay kuma hadnaqa waxaanu shirkan jarayd maanta u qabanay annagoo ah xisbiyada mucaaradka inaanu maanta halkan ka hambalyeeno cadceedda nabadeed ee ka soo baxday Ceelafweyn taasoo Somaliland dibad iyo gudo aad loogu farxay waxa la social media ay arkayseen sideedaa qodob ee odayaasha deegaanku soo saareen waan hambalyeeynaa waxaanan si gaar ah u hambalyeeynaa odayaasha iskood isu xilqaamay ee kala hogaaminayeen boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow iyo Suldaan Saleebaan waxaan leeyahay hambaliyo Somaliland oo dhan way idinku faraxday way idin soo ducaynaysaa garabkiinay taagan yihiin xalay toole waxaan ku tukaday masaajid looga ducaynayay baan ku tukaday salaadii maghrib dibad iyo gudo waa lagu farxay waxaan leeyahay hambaliyo Cabdiraxmaan Abdilaahi Fantastic Ariel TV Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida